barqadii maanta ayuu dumay dabaqan qadiimiga oo ku yaal degmada Shangaani oo gobolka Banaadir. 10 qof ayaa dhaawacmay halka 2 ruux oo kale ay geeriyoodeen kadib markii dhagxaanta iyo ciidu ay ku dul habsadeen qoys danyar ah oo deegaan ku ahaa dad wadada marayay iyo kuwa hoos harsanayay dabaqa. Kooxda gurmadka degdega ah ayaa burburka dhismaha ka soo saaray dad dhaawac ah oo isbitaalka loo qaaday. maamulka degmada Shangaani oo goor dambe goobta gaarayna waxa uu xaqiijiyay in la soo badbaadiyay dhammaan dadkii uu gurigu ku dumay. runtii waxa ka dhacay qasaare dhimasho iyo burbur leh shaqaalaha gurmadka degdega ee gobolka Banaadir shaqaalaha caafimaadka iyo degmada oo runtii gacan xoog leh ka helay oo iskaashanay waxay ku guuleysteen in maaragtay laga soo badbaadiyo ilaa iyo 10 qof oo dhaawacyo kala duwan qaba. gudoomiyaha degmada Shangaani Aweys Sheekh Maxamed Amiin ayaa sheegay in 2 kamid ah dadkii uu ku dumay dabaqan ay geeriyoodeen halka intii kale cusbitaalka la dhigay iyagoo dhaawac ah. ilaahay mahadiis waxaan ku guuleysanay oo aan ka soo bixinay oo ka badbaaday meeshaas dad gaarayo 12 dhaawac ay ahaayeen markii hore laakiin markii isbitaalada iyo goobaha caafimaadka la geeyay ayaa 2 kamid ah ay dhimatay ilaahay ha u naxariisto 10 dhaawacana hal kamid ah aad ay u fudud yahay waana qofka marqaatiga ah oo hadda nool oo si fiican u hadli kara asagaana riboodka dhameystiran nasiiyay in dadku ay ahaayeen 12 qofood meesha ku wada sugnaa hadda marka tirada saxda ah oo dhaawaca sida saxan u dhaawacan waa 9 qofood iyo 2 qofood oo dhimatay. gudoomiyaha degmada Shangaani waxa kale oo uu sheegay inay hore amar ugu bixiyeen in laga guuro dabaqan duqoobay oo loo arkay inuu halis gelin karo dadka deegaanka balse amarkaas ay dhagaha ka fureysteen dadkii deegaanka ku ahaa. dhowr jeer oo horena anagu hadaan maamulku waan u nimid digniino iyo waan siinay waan u sheegnay in meeshaan halis ka imaan karto ka guura laakiin dabcan waa garan kartaan waa ka dhaga adeegeen laakiin hadeertaan waxaan sameyn doonaa insha Allah taala in anaga aan go'aan degdeg ka soo saarno oo heer gobol iyo heer degmo ah si dadkan aysan waxyeelo kale aysan u geysan guryaha burburka ah kuwan kaliya ma kuwa kala jiri kara sababtoo degmadan degmo qadiimi ah waaye. xabsiga ayaa loo taxaabay intii ka bad qabtay dadkii deganaa gurigan maadaama hore loogu wargeliyay inay degdeg uga guuraan dabaqan oo aan la isku haleyn karin inta uu sii taagnaan doono. degmadan iyo degmooyinka ku yaala gobolka Banaadir waxa ka buuxa guryo qadiimi ah oo muddo soo jiray kuwaasi oo halis gelin kara mar walba dadka ku sugan gaar ahaan xilliyada ay jiraan roobabka iyo dabayluhu. Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka Muqdisho.